qodobada warkaan idinkugu haya hadduu alla idmo idinkana aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Mahad Maxamed Salaad oo ah agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya oo kulan xasaasi ah uga socdo magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan eegi doonaa ujeedka kulankaasi haddaba madhaba xogaha tilmaamaya in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu markaasi ka dalbanayo Mahad Maxamed Salaad in uu kala hadlo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya maadaama Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ay doonayaan in ay xilligan bedelaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe waxaan idinla wadaagi doonaa xogo daahson oo kulankaasi quseeya iyo wararkii ugu dambeeyay kulankaasi saddex geesoodka ah ee markaasi ka soconaya gudaha dalka Kenya wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa saaxiibayaal qodobada sidoo kale aan idiin soo gudbinayo warkan aan ku soo qaadan doono waxa kamid noqonaya Rooble iyo Xasan Sheekh oo isku haysta dhulkii uu Rooble doonayay in uu dhisto ee ciidanka cirka waxaan eegi doonaa ciidamo uu amar markaasi ku siiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in guud ahaanba dhulkaasi ay la wareegaan halka ay kala carareen shaqaalihii ku howlanaa dhismaha gurigaasi xilli ay xaaladdu ku xun tahay Rooble wararkii ugu dambeeyay xogo faahfaahsan ayaan idinkaga hayaa saaxiibayaal qodobada sidoo kale aan idiin soo gudbinayo warkan aan ku soo qaadan doono waxa kamid noqonaya dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga oo isku raacay in ay joojiyaan taageeridda dowladda federaalka Soomaaliya waxaan eegi doonaa labada safiir ee dalalkaasi oo markaasi loo yeeray xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan ka hor yimid qorshe halis ku ah qarannimada Soomaaliya oo ay wadeen labadaasi dal haddaba maxaa ka jira in ay markaasi ka caroodeen mudnaansiinta Turkiga ee dowladda federaalka Soomaaliya halka dowladda Soomaaliya ay dejisay qorshe ka dhan ah labadaasi dal xogo daahson ayaan warka ku eegi doonaa saaxiibayaal oo arrimahaasi ku aadan qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarnayo ayaan insha Allah idinkugu hayaa la soo dhawaada saaxiibayaal oo meel fogna la gaarsiiyo wararkan idinkoo saaxiibadiina kale ku share gareynaya ee baraha bulshada idinkugu jira aad baa u maasantiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhamaantiinba waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Mahad Maxamed Salaad iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa ay kulan xasaasi ah xilligan uga soconaya sida xogo kala duwan markaas lagu helayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan eegi doonaa ujeedka kulankaasi oo la aaminsan yahay in looga hadlayo sidii labadaasi mas'uul ay dhexdhexaadin markaasi uga bilaabi lahaayeen dhinaca dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la sheegay inuu codsaday kulankaasi waxaana uu u marayaa Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Mahad Maxamed Salaad in ay kala hadlaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo markaasi la aaminsan yahay in uu markaasi soo xulay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la sheegay in siyaasaddu ay ku kala tageen isaga iyo Axmed Madoobe isla markaana uu doonayo isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay xilka ka tuuraan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo la aaminsan yahay in weerar siyaasadeed xilligan uu ku socdo isaga iyo saaxiibkiisa kale ee siyaasadda Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxaa sidoo kale qabowday siyaasadii lagu hayay deegaanada Galmudug iyo Hirshabelle saasaantii markaasi muushinada ah oo ay filla Soomaaliya abaabuleysay ayaa la sheegay in ay baaqatay waxaa haatan culayska xooggan markaasi wajahaya hogaamiyaasha ay markaasi ka mid yihiin Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani kulankan markaasi lagu qabtay magaalada Nairobi isla markaana ahaa kulan saddex geesood ah dowladda Kenya ay kor kala socotay maalgelintiisana ay qayb ka ahayd ayaa la sheegay in looga hadlay arrimo xasaasi ah dowladda Kenya waxay doonaysaa in xilligan ay markaasi heshiisiiso madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Mahad Maxamed Salaad waxa ay aqbaleen sida la sheegay in fariintaasi ay gaarsiiyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si culayska looga dulqaado hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhibaatada kaliya ee haatan markaasi laga tirsanaya ayaa ah arinta gobolka Gado oo markaasi ay doonayso kooxda Damul Jadiid inay markaasi faraha u kala baxo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe
axmed madoobe ayaa la sheegay in uu si dadban ula shaqeeyo dowladda kenya taas ayay sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ku haysataa waxaana laga doonayaa in uu markaasi joojiyo faragelinta uu ku hayo dowladda federaalk soomaaliya. axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi deni ayaa la aaminsan yahay in ay haatan markaasi la kulmayaan culeys aad u xoogan oo kaga imaanaya kooxda damul jadiid oo markaasi doonaysa lacago badanna ku bixinaysa sidii hogaamiyaashaasi meesha looga leexin lahaa. shacabka deegaanadaasi ayaa sidoo kale aad uga soo horjeeda labadaasi hogaamiye oo la sheegay inay xoog ku haystaan deegaanada Jubbaland iyo Puntland waxaa ka soconaya kacdoon xoogan oo xilligan la doonayo in xilka looga tuuro hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa isku haysta dhulkii uu Roble doonayay in uu dhisto ciidamada cirka. waxaan eegi doonaa ciidamo uu amar xilligan markaasi ku siiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guud ahaanba dhulkaasi oo ay la wareegeen ciidamada koofi casta ee madaxtooyada Soomaaliya ka tirsan halka ay markaasi kala carareen shaqaalihii ku hoolanaa dhismaha gurigaasi iyo injineerkooda oo la sheegay meel jaan iyo cirib uu dhigay ilaa iyo haatan in la la'yahay. xaalad aad u xun ayaa waxay ka taagan tahay dhismahaasi oo horay madaxweyne Farmaajo u joojiyay sidoo kalena dacwad uu ka gudbiyey xilligaasi taliyaha ciidanka cirka generaal Cabdixamiid Dirir oo sheegay in haatan Bob xoogan uu ku hayo dhulkaasi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. taasi waxay keentay inay markaasi si xumeyso xiisadii u dhaxaysay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa markaasi la sheegayaa in haatan xaaladdu ay ku xun tahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi u diray ciidamada koofi casta ee madaxtooyada Soomaaliya ka tirsan kuwa oo amar lagu siiyay in wax dhismo ah aan laga bilaabi karin dhulkaasi oo lagu eedeynayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble in uu markaasi joojiyay isla markaana uu doonayo in uu Bob kula dhaqaaqo. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhowr jeer waxaa lagu eedeeyay in uu gudaha Soomaaliya ka wado dhul Bob aad u xoogan. taasi waxay keentay inay markaasi wada shaqeyn waayaan isaga iyo sidoo kale madaxweynaha xilka ka degay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan eegi doonaa saaxiibayaal xogo arrimahaasi ku aadan iyo sidoo kale dhulkaasi oo la sheegay in ay haatan markaasi gebi ahaanba dowladda Soomaaliya ay joojisay. dhinaca kale waxaan eegi doonaa warar kale oo xasaasi ah oo arrimaha markaasi siyaasadda kuwooda ugu waaweyn ayaan eegi doonaa. ha la sii sheergareeya saaxiibayaal wararkan iyo xogahan xasaasiga ah. waxaan markana eegi doonaa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa waxay markaasi isku raaceen inay joojiyaan taageerada dowladda federaalka Soomaaliya. isiyaan waxaan eegi doonaa labada safiir ee dalalkaasi oo markaasi gebi ahaanba looga yaray dalalkooda xilli Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowaan markaasi ka hor yimid qorshaha lisku qaranimada Soomaaliya oo ay markaasi wadeen labadaasi dal. haddaba waxaan eegi doonaa warar kale oo xasaasi ah iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la sheegay in uu markaasi doonayo in xilligan uu markaasi Imaaraadka iyo Sacuudiga joojiyo taageerada iyo markaasi uu ka filayay isagoo haatan taageerada u weecin doono dhanka iyo dowladda Qatar.